الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا عشرة فربنا أرضيدا هرجة يوسف قاتين وحينوصل عشرة دي تعنا سومالي سرنا إن ترينين وحنا المعلومات حنسوسو دريدونا درتنا نمبر. إذا عشرة فربنا أرضيدا هرجة يوسف قاتين تنسيل دي أيام ما نتارك دونا وأنا مهم جدا تاس. لو يتون كتنس الصفة فاصل وصل لنا يو أرضيدا كلا دوان وأدوية دافية دكتور النول أيانا كفاية سلدونا وأنا مهم جدا تاس عشرة فربنا halkaasaan kusii aqrin doonaa iyadoo step step loo arki doono waana injineer maxamed axmed barre casharadiisa tacanaha tilaabo ayaan wada qaadan doonaa waana 12 taynis inaan wada qaadano waa muhiim jiddan Somali Startup @yahoo.com iyo somalistarionline.blogspot.com macluumaad ayaan sii weydiin karnaa kasii raadin karnaa u baahano tayniskii waan soo gudagalayaa 12 taynis iyadoo maanta si faahfaahsan halka lagu arki doono how many tenses are there in English. Imisa tenses ayaa ku jira Englishka. There are 12 tenses in English. 12 tenses ayaa ku jira according by marka la isku soo koobo their classification kala baxbaxooda they are exactly sida saxda from 3 tenses saddex tenses ayaa ka yimaadeen what are they maxay kala yihiin they are simple present tense past continuous tense present perfect tense, present perfect continuous tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future continuous tense. waxaan oo sii dhiman wali laba tense baan naga sii dhiman halkaas aan ku arki doonaa idoo 10 fara badan ardayda horay ay u soo arkeen marka tenniska koowaad baan aqrin doonaa tenniska koowaad ayaan hadda aqrin doonaa idoo step step aan u baran doonaa tennisyada 10 tennis markaan aqriyo kii koowaad. What is the simple present tense? Simple present tense is used for an action which every give example and formula subject plus infinitive verb plus object. Example, he plays football. Other example kalena waa arki doonaa. Okay, ida 10 fara badan orayaan u soo aragnay informative. He drinks milk caano caba. I learn English kan barta. She cook food cunay karisa. They eat a breakfast quraacay cunaan. We drink much water biyo badan baan cabnaa waa informative kii. Interrogative kina waa kan. Interrogative maxaa ku soo qaadan daas he drink milk caano ma cabo ma caano miyuu cabaa waa su'aalo interrogative. Does he drink milk caano miyuu cabaa? Do I learn English miyaan bartaa? Does she cook food cunno miyay karisaa? They are eat breakfast quraac miyay cunaan? Do we drink much water biyo badan miyaan cabnaa? Negative, he does not drink milk caano ma cabo. I do not learn English ma barto. She does not cook food cunno ma kariso. They do not eat a breakfast quraac ma cunaan. We do not tennisyadii aan horay u soo baranay halkaas maanta sii joognaa informative, interrogative iyo negative waan aragnay 12 tennis 10 ugu horeeya markaan sharaxno ayaan labada dambana gadaal ka aqrin doonaa iyadoo 10 fara badan ardayda ay halka ka heli doonaan waa Somali Star Online Training English Language and Computer Teaching wixii waxaan la soo wada xiriiri doonaa halkaas iyadoo 10 step step kan ku guda jirno tilaabo aan wada baran doonaa 10 taxanaha miigaanka ayaan halka kala sii socon doonaa waana mujidan taas. Somali Star Online Training waxaan ka sii faa'iideysan doonaa professional English online iyadoo tilaabo aan u arki doono 12 tennis. Direct number waa marjic aan la soo xiriiri lahayn waana injineer maxamed axmed barre casharadiisa taxanaha somalistartup@yahoo.com waan la soo xiriiri doonaa. sidaa darteed fi amaan Allah wassalaamu calaykum.